سلمان خاشقجي wax waliba waxay ku bilowdeen handadaad si ay handadaad u noqoto mid joogto ah qonsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul waxay kulmisay 15 qof oo Riyaad ka tagay si ay u fuliyaan shirqoolkii lagu dilay wariye Jamaal Khashoggi kowdii doori 14 daqiiqo ayuu Khashoggi galay qonsuliyadda waxaa la kulmay ilaalada kuwaasi oo u raacay xafiiska qonsuliyadda ee dabaqa labaad waxa uu kula kulmay oo sugayay kooxdii shirqoolkiisii lagu dilay oo uu ka mid yahay Maahir Abdulcasiis Al-Mudrib oo ah shakhsiga ugu dhow dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ee dhanka safarada dibadda waxaa la hordhigay Khashoggi inuu u laabto Riyaad ama uu warqad u diro wiilkiisa taasi oo ugu sheegayo inuu maqnaan doono oo la waayi doono waqti markii uu diiday labadii arrimood ee la hordhigay ayuu Khashoggi weydiiyay Mudrib miyaad dilaysaan Mudrib waxa uu dalbaday in aaladaha lagu dilayo la hordhigo Khashoggi isaga oo dhahaya laguma dilayo haddii aad isdhiibto intaasi kadib 5 nin ayaa weerartay oo ku booday Khashoggi waxayna madaxiisa geliyeen bac kuna ceejiyeen waxa waliba waxay ku dhamaadeen 7 daqiiqo iyo bar gudahood waa la dilay Jamaal Khashoggi Mustafa Al-Madani oo ah sarkaal amni Sacuudiyaan ah isagoo iska dhigaya Khashoggi ayuu xirtay dharkiisii waxaana uu yiri waa cabsi inaad gashato dharka qof hadda la dilay markii jirkiisa laga dhowray lagana tirtiray dhiiga waxa imaaday Saalax Dabiiqi oo ah dhakhtar si uu u jarjaro waxa uu sheegay Dabiiqi inuu si sahlan u jarjari doono jirka Khashoggi isagoo sheegay inuusan horay sidan oo kale u jarjarin xubno bini aadan qofkaasi oo nafta ka baxday mar dhow markii ay saacadu ahayd 2 duurnimo iyo qadar 52 daqiiqo ah wuxuu Madani ee gashnaa dharkii Khashoggi ka baxay qonsuliyadda markii la jarjaray jirka Khashoggi waxaa loo qaybiyay 5 bac 7 gaari oo kuwa diblomaasiyiinta ah ayaa ka baxay qonsuliyadda waqti kooban kadib kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay wadeen xubnaha la jarjaray ee Khashoggi labadii diyaaradood ee kooxda shirqoolka ka soo qaaday Sacuudiga maalintii ay dilka fuliyeen ayay ku baxeen kooxda isla maalintii mid ka mid ah diyaaradaha ayaa u jeeysatay Qaahira halka mid kale ay aaday Dubai ka hor inta aysan u wada laaban Riyaad 10 maalmood kadib ee inkiraada ayuu xir ilaaliyaha guud ee Sacuudiga sheegay in ay kiiska Khashoggi u xireen 18 qof oo dambigaasi looga shakisan yahay inkasta oo ay wali xor yihiin 5 qof ee ka dambeysay dilka ayna ka mid yihiin Saalax Dabiiqi ee jarjaray iyo Qahdani 5taasi ayaana aad ugu dhow dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed